sababta dumarku aysan u sheegin jacaylka. Haddaba, marka laga yimaado xishoodka rabbaaniga ah ee ku abuuran dumarka, haddana dumarku ma aha kuwa noqda qofka u horreeya ee sheegta jacaylka ay u qabaan ragga. Inta badan, xidhiidhada jacaylka ragga ayaa ah kuwa u horreeya ee dumarku u sheegta, halka ay dumarku noqdaan kuwa aqbala ama diida jacaylka. Haddaba, sababtu maxay tahay? Waxaa jira dhowr sabab, balse qaybo ka mid ah ayaynu soo qaadannaa oo dumarka ku kallifaya inay jacaylkooda qarsadaan. Waxaana ka mid ah: 1. Baqdin. Waxaan shaki ku jirin dumarku inay ka qalbi jilicsan yihiin ragga oo ay ka naxariis badan yihiin. Gabadhu hadday wiil u sheegato jacayl ay u qabto, waxay ka baqaysaa inuu ku diido amase ku daadiyo, taasoo dhaawac u keenta dareenka jacaylka ah oo ay u qabto. Isla markaana, gabadhu waxay door bidaa inay sugto inta uu jeclaanayo isagu, balse kama maqna dareensiin ay wiilka dareensiinayso inuu qalbigeedu u soo jiro dhankiisa. 2. Warwar. Gabadhu waxay ka warwartaa wiilka ay jeceshahay inuu leeyahay jacayl kale, taasoo keenta inay muddo badan jacaylkeeda qarsato. Aakhirkana, warwarkaasi wuxuu sababaa inay gabadhu noqoto mid ku mashquusha inay raadiso xogta wiilka ay jeceshahay. Xishood. Xishoodku waa sababta ugu muhiimsan ee kallifta inay dumarku qariyaan jacaylkooda, waayo dareenka xishoodka ah ee gabadhu ma aha mid aqbala inuu nin hor istaago kadibna jacaylka u sheegto. Haddii aad muuqaalkan intaas soo gaadhay, fadlan channelka subscribe saar, like garee muuqaalkan, lana wadaag dhammaan asxaabtaada. Mahadsanid. Sidoo kale qaybta commentiga waxaad nagu reebi kartaa wixii talo iyo tusaale iyo toosinba.